maanta waxaan rabay inaan idiin sheego my social media strategy. Hadda intii aan maqnaa waxa dhacday maaragtay social media haygin hoos u dhacay, aanan maaragtay followers iyo likes wax kasta hoos u dhaceen, dadka kula soo xiriiraya. Marka tahay qof freelancer ama qof online ka shaqaysanaya, which is adduunka oo dhan hadda online bay ka shaqaysanayaan. Haddaad social media haaga ka fariisatid, social media haagan uu fariisanaya. So hadda waxaan rabay inaan dib ugu soo laabto inaan intaanad shaqo bilaabinna waxa la sameeyaa strategy inta ayaan hadda sameynaya rabay inaan idin la qaybsado tan waa tayada weeyaan. So normally waxaan just idinku raadhaa website kan aan sameeyay baleega ama waxaan sameeyay brand kan aan sameeyay, laakiin imika waxaan rabaa insha Allah inaan idin la qaybsado website ka ayaa ka dambeeya, company-gu muxuu iibiyaa, maxay ahayd qofka iskale muxuu yahay insha Allah dreamkiisa, because business weeyaan waxaan qof dreamkiisa dhan ayaa ka dambeeya. Marka the real way na runtii brand lagu dhiso waa by connection, inaad storyga qofka og tahay inuu qofku noqon karo connected to the story. And so saas insha Allah u bedelayaa. Waxaan rabay inaan idin la qaybsado my social media strategy. Intaan iska oran lahaa waxaan sameeyay just inaan idin tuso the whole story insha Allah. Marka la socda hadda baan bilaabayaa the next video daawo wuxuu ka hadlayaa brand aan sameeyay iyo sheekada ka dambeysa.